بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxaan isugu kin yeeray waxa noo mudeysnaa bisha June horaanteeda shirweynihii xusbiga kulmiye ee afraad inaanu qabanno sida la wada socotaan waxa dhacay xanuun dalka adduunyada oo dhan saameeyay oo aan intan maanta aynu isugu nimiyo in ka badan toonaan la isugu iman karin dadka shirka ka soo qayb galaya waa kun iyo dheeraad waxaanu go'aansanay inta xanuunkaas aynu la dagaalamayno oo ina dhaafayo shirkii inaanu dib u dhigno dhammaan xusbiga kulmiye taageerayaashiisa golaha dhexe iyo fulintiisaba waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa shirkaas muddo dambe in la sheegi doono waqtigu dhacayo ilaa intaynu hadda ku jiro xanuunadana aanu shirkii inoo qabsoomaynin intaasaan idinku wargelinayay oo maanta idinku yeedhay wixii su'aal ay weydiinaysaan iga weydiin kartaan oo ay weydiin kartaan magacayga waa Luqmaan Maxamed Shatiifi ka socda maalmihi ugu dambeeyay waxaan hadalhay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wicid oo dadka qaar leeyahay beelii Soomaaliland buu kala qaybiyay beelo kamid ah beelii Soomaaliland waxba kuma laha bal arrinta adigu ka xisbi kulmiyahan sadar arrinta gudoomiyaha xisbiga wicid oo sheegay shacabka reer Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool gudihiisa iyo dibadiisaba halkay ka taagan yihiin ba xisbiga kulmiyana ka taagan yihiin runtii wax laga xumaadana way ahayd waanu ka xunahay waxaanay u taalaa sharci dejinta iyo wasaaradda cadaaladda wixii ay ka gaarayaan go'aanka ay ka gaarayaan kuwaas ay u taalaa anigu intaa u dhaafi maayo Faysal salaam inaad dib u dhigtaan shirkii waqti ma sheegin marka waqtiga dib u dhigtaan waqti aan cayimeen oo aan sheegin mise waqti cayima waxa inagu soo socdaa doorashooyin shirkii maanta waxa jira nin waliba uu ogsoon yahay xanuun baa jira xanuunkaas maanta inuu bariito inaga dhamaan doono iyo inuu sanad qaadan doono adduunyada oo dhan war kama hayso marka waxay ku xidhan tahay dalkeenu xaaladiisu siday noqoto dib baana laga soo sheegi doonaa shirka ma ayina marka laga yimaado inaad shirweynaha xisbiga dib ugu dhigtaan xanuunka COVID-19 ee dunida ka jira waxaa jira warar kaloo sheegay in khilaaf dhexdeeda ka jiro oo warar barnaamijka xisbiga kulmiye wax khilaaf dhexdiisa ka jira ma jiraan waa xisbi gudihiisa laga wada hadlaa waa la isqabsadaa waa la doodaa laakiin xisbigayga qaylo ka soo yeedhay oo waanu ishaysanaa meel ay ka yeedhay ma jirto gudoomiye waxaad ka warantaa wax jirta gudidan loo xil saaray xanuunka COVID-19 bulshadu waxay leedahay sidii loo baahnaa uma maamulin dhaqaalihii sidoo kalena isbitaalada waxa ka jira baahiyo kala duwan oo dhaqaalaha lagu isticmaali lahaa arrintaa ka xisbi ahaan idinku sidoo aragtaa dareenka bulshada ka soo noqday anagu waxaan u aragnaa gudida runtii sida ay u maamuleen inay si wanaagsan u maamuleen waxaa hadhay dadka sidii wax loogu sheegi lahaa dhaqaalay ururiyeen mid ay xukuumaddu ku dartay mid ganacsatadeennu ku dartay mid laynagu caawiyey waxaan filayaa inay idinla wadaagi doonaan gudidu iyada oo shaxaysan cusbitaalada waddanka ka jira cusbitaal aan caawimo la geyn ma jiro haba yaraatee caawimooyinka intay doonto ha la ekaadee ama buuhoodle ha noqoto ama laascaanood ha noqoto ama boorame ha noqoto hargeysa iyo gabiiley 13 cusbitaal baan filayaa cusbitaalada waaweyn ta ku xigtaana waxay noqonaysaa runtiina warbixinta oo dhan waxa haysa wasaaradda caafimaadka ayaan waxaan leeyahay shacabkeenu inay dhageystaan warbixinaha ka soo baxaya ma hata suuqa in la dhageysto in loo dhaganuglaado wasaaradda caafimaadku waxay leedahay caawimooyinkayna soo gaadhayna sideeday uga sheekayn doonaan iyadoo shaxaysan gudida dhakhaatiir bay iyaa ka hoos shaqaysa dhakhaatiir kuma jirta baan had iyo jeeraale ka maqlaa media laakiin dhakhaatiir bay iyagu oo professor ah oo dadkii dalkan wuxuu soo bartay gudaha iyo dibadba uga soo bartay ayaa la shaqeeya caafimaadka kala shaqeeya marka wasaaradda caafimaadka waxaan oran lahaa inta xanuunkaas jira aynu hogaansano ayaan shacabkeena u sheegaya assalaamu calaykum